Ma ogtahay in qarxii ugu horreeyay oo Muqdisho ka dhaca dad badanna ay ku dhinteen uu ahaa qarxii Hotel Shamow 3 Diseembar 2009? Ma ogtahay in magaalada Qaahira loo aqoon jiray magaaladii kunka minaaradood? Ma ogtahay in Nabi naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ay hilibka sun ugu dartay haweeney la odhan jiray Zaynab bintu Xaarith? Ma ogtahay in ciidanka booliiska dalkeena Soomaaliya uu yahay kan ugu faca weyn ciidamada dalka, lana aasaasay sanadii 1950kii 20 Diseembar? Ma ogtahay in diamond-ka dunida 5% uu ku jiro waddanka Sierra Leone? Ma ogtahay maroodiyaasha ugu badan caalamka in ay ku nool yihiin dalka Cameroon, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 20 milyan oo maroodi? Ma ogtahay in kacdoonka dalka Syria uu bilowday 15kii Maaj 2011? Ma ogtahay in waddanka Cumaan uu xorriyadda ka qaatay dalka Britain sanadii 1970kii? Ma ogtahay in magaalada Ceyrigabo oo ah magaalo madaxda gobolka Sanaag ay Muqdisho u jirto 1450 kiiloomitir? Ma ogtahay in Soomaaliya ciidankeeda cirka uu ahaan jiray 1000 askari? Ma ogtahay in sanadkii 1972 dowladdii kacaanka ee Soomaaliya ay ku guuleysatay joojinta colaaddii u dhexeysay dalka Uganda iyo Tanzania? Ma ogtahay in 25 Abriil sanad kasta ay tahay maalinta ka wacyigelinta dadweynaha dhibaatada cudurka malaariyada?